واتحي أصحابتا موقال كان يواوي قد وين دمام موقال الذي أنجوبه دوري تبنك السنة أمر بهين تكتري وحان ما أنت بقندونا قبتي أنا وتشعل الدنيا قبت عن الدنيا وتشعل ترى محن قندونتا وحاي كم تحي حسوس قروح بدن أو دمانتنا نسومرني مهمنا إن نحسوسنا دمانتنا maanta waxaan dib u booqday dugsigii sare ee aan waxbarashada ka bilaabay 9 sano ka hor waxaana aan booqday macallimiintii iyo fasalladii kala duwanaa ee waxbarashada ku soo qaatay dugsigii sare ugu horreyn waxaan la kulmay macallimiintii kala duwanaa ee dugsiga sare waxaan uga mahad celiyay sidii wanaagsaneed ay wax noo bareen sidoo kale waxaan tagay fasalkii aan waxbarashada dugsiga sare ka bilaabay 9 sano ka hor iyadoo ahayd runtii mid xiiso weyn ku lahayd noloshayda inaan fadhiyo 9 sano ka hor halkii aan ka bilaabay dugsiga sare oo ah dugsiga Nuruddin gaar ahaan fasalkii aan waxbarashada ka bilaabay aad baan ugu faraxsanahay runtii maanta waa maalin iga duwan maalimii hore intaasi kadib waxaan maray qaybaha kala duwan ee dugsiga sare ee Nuruddin oo ah mid aan wax ku baran jiray sida fasallada kala duwan ee ardaydu ay ku sameeyaan tijaabada sayniska iyo akhriska iyo xafiisyada kala duwan ee dugsiga sare ee Nuruddin oo ah dhammaan mid xasuuso ku leh noloshayda waxbarasho inta waqaalay markaad la joogtid macallimiintaad wax ku dhigay 9 sano ka hor muhiimadda muuqaalkeenana waxay tahay saan horeba u soo sheegay inaan ku dhiirigelino waxbarashada iyo in qof kasta oo balduba xasuusto macallinkiisa yaraantii أبو ما عبد الرحمن عقول سوونا كم إذا عرديدي أنه شن سنة كوار كبحنا دوسي إسرائيل ما أنت سوونا هالك كواركي وكم إذا مسؤولين تأيو وحوي شغالها دوسي عبد الرحمن سودو صاحب صاحب أي أدبن ودو هاي ساك أدبن وفرح سرينا ويسود إنه دوسي 9 سنة كوار صافي 16 سنة كوار ناك بحري أدبن وفرح سرينا ويسود ويدوسي الوالدين سودو ورا أدبن ما ستقولي سوا أصحابته ونوجهاي إن دمانتن تاني نوع نقنصه midaan dib ugu xasuusano macallimiinteennii iyo goobihii aan wax ku baran jirnay waqtigii yaraantii kuwaasi oo dhammaantoodba xasuuso ku leh nolosheenna sidoo kale waa muhiim inaan dib ugu noqono goobihii aan wax ku baran jirnay isla markaasina u soo mahad noqono macallimiinteennii yaraantii waa tahay muuqaalkii maanta intaas nugu yahay ballanteenu maxay tahay aad baan idin salaamaya khayr baan idin kooga guuleysta